قرنيسان من سعيد بن عامر ليلى والصحابي يا برق دولة عمر بن الخطاب ودسي يا مقالة حمصي ليلى حمصي وعيقولها الله سوريا ومقالة مدح الله هذا سوريا يا waxaa looga dhigay waali macna gabala looga dhigay Saciid bin Aamir inuu diido dabcay laakiin Umar baa wuxuu ku yiraahdaa diido mas'uuliyadda la ii dhiibay hatta waa iska casili waa amiirul mu'miniinada waa iska casili hadduu nin walba dhaw aniga mas'uuliyadda ma qaadi kari marka wuu ogolaaday xumsiduna magaalo war badan bay ahayd magaalo ugu fidda badan magaalooyinka ahayd waa dadka warka badan ee subaxdii wuxuu sheegaan Saciid bin Aamir markuu muddo joogay magaaladii iyadahay ya Umar bin Khattab wuxuu wareegi jiray macna dawladda oo dhan islaamka intay ka tariso yuu ku soo wareegi jiray isagoo maalin wareegahay uu tagay meeshii iyadahay laba shabar goor wuxuu yiri dadka liita ee magaalada uu liita wuxuu rabaa xoolihii meesha lagu ururiyay waxa la stoorada oo dahab yaala iyo xoolihii gaalada laga soo qabto dhan baa meesha yaala wuxuu yiri masaakiinta magaalada ugu liidata ii soo qora si aan xoolaha wax uga siiyo ninkii koobaad markii la soo qoray ninkii labaad waxa noqday amiirul ninkii magaalada haystay gabaraha yaa masaakiintii la batuubi ama la barti qaar waxay dhaan la batuubu noqday qaar waxay dhaan la bartiri buu noqday ninka saddexaad buu noqday oo ninka waxa ma haysta biyaabi waxa ma haysta leeyahay intaas oo maalmood baa la arkaa gurigiisa bay dab laga shiday saadka heshay baa leeyahay amiirkii ka warraba لك هذا جيسة أنت كريم دول وبع عبرة هذا كقاضي وجبرة استورد الذهب وهي استورد الذهب حولي قال لك بتور نبأ عادي سكوتشره حولي إذا كذا اللي وروريون نبأ هيا بعيدا أفر شيء بعدك كشجرة هنا أفر شيء بنقول نبي لك بعيدا هبين الدين لقاره بقالوا هدي ركبته أو ضب قبصده أو الله بابا أو روح على حتى كله لان كل جيسة كم صبح قال هذا لسه بدح روح ninka waxay dhahay subaxdii waqti hore xafiiska ma yimaado dacwada labaad weey dacwada ana subaxdii soo kalo amir hore dacwada xafiiska ma yimaado waxay dhahay ninkan saan u joogo bishii maalin baa la weynba sodonka bariya bisha ama 29 midkaad ka dhigtaba maalin buu bas soo baxay oo la arkay casarkii baad arkay dhahay inta hore ba arkays dacwada afraad ee ka soo gudbiyay waxay ahayd ninka waxay dhahay suu u joogay kuula joogo وما بمير كيس اللي جالي ونو واربو بنقبة هذا إنه على نفسه كم بحذا ما حرس سكن إنه نفسه كم بحذا بس كحد يسوي نبى بدلبي وحوالها هي ما قررينا أفرت العذر بعد ذلك كوارع قلنا أفرت النبى كو قبرها سميت هون البال بالله يسوق كاري أمير المؤمنين عمر بن الخطاب فنيها قبله مقالة وهو فنيها حين أفرت الشيء أفرت هذا الله هو هيستشيد بحمي عمر بعد هاي حين هذا إلى الشيء قال يمر من وحاس لكن أفرت ما كنت بحي بدأ إليهم هبيك إنك لدي مقالة الركبة مصبح أعطيتم النهار وأعطيت لله الليل بي ما أنت إياك سيئي هبيك هنا إلهي ما سيئي ووان عبادة استا قرآن بان أخريها وهبيك ونبا عبادة استا والله أعطي الروان هبيني يمارين إنا إسكاكي درصدان والله ماشا كنت جيبوا إلى رب قريبي هذيك هبيني يمارين كين إلهي سيئي جواب سيدا تفيري فالقضية هاي عمر كل سعيد بن عامر هبيك إلهي ما سيئي ولا أديك حاجات يا سيدي هبيني ما كان إلهي سيدي طبعا لو تدخل 10 كلا غير فضل الله ماشي نحور رئيسه حاجات صعتها وحال الرباع روحوا له وقعدوا عمري سيدتو يا يريديس 60 لحدا ضد قاعد نمر استدياري نكي سقى انت يرد اليارات هاي كيف يستاهل الرباع بس الذي عمر واقع معي السنة اللي وحي ninkan subaxdii ma soo kallo ninka waa gabarihi dhanaa ee gobolka Xumsi wuxuu yiri waa run ma soo kaliyo waxaan soo kaliyin aniga reerkaygu shaqaala ma qabo wax u shaqeeyo shaqaala ma qabo cajeerada uu qoyaabi dhulka waa shaab waa dhul qabow cajeeradu markaas ma faxayso intay ka yara faxaysaan sugaa markay faxdo oo reerka u dubo oo u hagaajiyo yaa soo baxay gabaraha cajeeradu biyaa waa toban shaqaala gurigiisa joogta ama 20 baa joogta oo ninba shaah kuwa karin cuntada kuwa karin oo ku kala xaq karin oo nin walba weelkiisu la imaan soo qaad kaasuna
xoolahaas iyo xoolaha dhawr isku mid ogow xoolaha ninka waayay iyo kuwa dadkan hadda joogay mas'uulka meel joogaan baa joogeen ay hayaan waa isku mid xayl xoolaha dadweynaha laha kuwana dadweynaha leh waa qodobka labaad sooba qodobkii labaad sax uu qalcay Umar qodobka saddexaad waxay ahayd ninkan bishii baan maalin la arkay wuxuu yiri aniga amiirul mu'miniin aniga hal maraan qabaabi hal maraan qabaa marada iyadaana bishii maalin maan dhaqaa maalintii intay dhaqantay baradu iiga igageysana guriga dhex fadhiyaan oo mar qabin balka ka waran ninka ka waran walaalow Saïd bin Aamir guriga dhex fadhiyaan xoolaha islaamka oo dhan gacadiisa ay ku jiraan masalada afraad wuxuu yiri biirkiisa la gari wuxuu yiri barigii dagaalkii badal markuu dhacay ka bacdi gaaladii oo calaysan يعني خويب اللي لها قبتين أو مسلمين كبده خويب مركي قبتين نندير برها بيحوق بدن نكي مال وصل حلوي نكا يسقى حوي يبي إيك هذه لو رجع هذا السؤال سؤال بلوي ديورك على ماشي هتكون حلتها هاي إلا جالس يدايو ومحمد لقصه حلو وهذا اللي قفصه بقول رأي الله والله حوي محمد وماشي لقصه حلو تشوشيه بقال هذا المدينة يسوي تشوجا baasha gacandida la ilaahay qodaxda ee yaro inay muddo raali kama noqdeen bi wax kale ku dhaca joojiye wuxuu yiri balukaadii laba ragcadood aad tukaday laba ragcadood oo sunnu tukaday ma li ahsaniha wa li kamaliha bi laba ragcadood oo tukaday ninka qiimahooda iyo wuxuu yiri sida si ka fiican yaan u tukan laha hadaana ka cabsanay inaad dhahdaan salaada wuxuu u dheeraynayaa dilku ka cabsanaya waxaan arkayay ninkaas oo dhagtiisa la gooynayo naagihii baa intay ku bureen mid degta goosata iyo mid sanka goosta iyo mid meel goysa iyo mid gacan goysa ninba meel xubnihiisa oo dhan oo la gogoynaya fiirinaya buu dambiga meesha ka dhacay weynankiisa markaa soo xusuusto yaa qalbigayga la galaa buu waa bari loo baabi dambiga ani maalinta gaal baan ahaa buu laakiin waxaan dhahay dambiga meesha ka dhacay waliga ilaahay kama dhaafayo xoogan qabay iyo saan ugu hiilin karay inkastoo islaam ahayd markaa iyada dambigi meesha lagu suubiyay nin dhan oo isagoo nool xubnihiisii la kala googooyay marka soo xusuusta qalbigayga la galaan marka nimanka waxa weeye nimanka iyaga waxay raadinayeen ee adiyada Umar bin Khadaab marka wuxuu soo qaaday 1,000 diinaar dambiil buu ku soo riday nin buu soo dhibay wuxuu yiri balka u geeyay ninka gabaraha cidiisa caawiye ninkiiba u keenay markaasuu saa u fiiriyay markaas wuxuu yiri inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun ma dunya inta iga daba timid inay aakhirada hadlayso salaantii baa waxay ku taritay ka soo booday jikmeel maxaa ku dhacay tiri oo ka istirjaac wuxuu ku yimaadaa basiibo weyn markay dhacdo markaas waxay tiri aqutila amiirul mu'miniin ma amiirul mu'miniin kala dilay wax ka daran baa dhacay baciidka dagaalka ku maqlaay saxaabada baa nag laga dhigay wax ka daran baa dhacay هو حكى درك واب حيت هيبت وحيت الدنيا انت ايغا دبا تيمد او كسو عرري انت ايغا دبا تيمد غوري الى اخرده الى فساد سوي لعقتنا وحيت هاد وحوا ما هيسدين وحقا كاله بقول خبارته ناكي هبله هيدا قروبك اهي بقول خبارته تي اغونت هيستي لعقتي ودب قبي حتى هل شيء كما سوري هو قبيبه بقول كوكي دينار بدد بو قبي raggaas waxay raadinayeen wax adduunya ay tahay qiimaheeda ay ogaayeen waxa aakhirad yaalana way ogaayeen way garanayeen way tareysanaayeen marka ruux waa inuu dareemo aakhiradiisa inuu xoog ka saaro